dadka intiisa badan waxay aaminsan yihiin in cudurkan gaaska aan laga dawoobin. Gaasku dawooyin ayuu leeyahay, waana laga fiicnaa. gaas hadduu ku dhaco oo ku hayo lagugu soo sheego, waad ka fiicnaanaysaa, dawo fiicana laga siinayaa. waana cudur boqolkiiba boqol treatable la daweyn karo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Dr. Cabdilxakiim Kamaal Xuseen, Dr. Kamaal. waxaan ka howlgalaa isbitaalka Abaar. waxaan ku takhasusay cudurrada dadka waaweyn iyo cudurrada guud. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo gaaska cudurka loo yaqaan iyo midka la yaqaan gastritis oo ah caabuq ku dhaca caloosha. aan ku horumarno peptic ulcer disease maxaa la dhahaa ama gaaska. gaasku waa nabro ku samaysma caloosha iyo xiidmaha qaybta kore. peptic ulcer disease-ka ama gaasku wuxuu u leeyahay laba qaybood. midna waxaa loo yaqaanaa gastric ulcer, wuxuu ku dhacaa caloosha. qofka cunada markuu cuno ayuu xanuun zaa'id ah dareemaa. midna wuxuu ku dhacaa xiidmaha duodenumka, waxaa loo yaqaanaa duodenal ulcer. kaa wuxuu leeyahay qofka inuu xanuun dareemo marka uu cunada cuno 2 saac ama 3 saacadood kadib, ama in xanuun zaa'id ah iyo hor badan baga uu ka dareemo habeenkii saqda dhexe markay calooshu faaruq tahay. haddaba maxaa keeno in uu gaas caloosha ku samaysmo ama caabuq caloosha ku samaysmo? waxyaabaha ugu badan ee keena cudurkan waxa weeyaan bacteria caloosha ku nool oo loo yaqaano H. pylori. bulshada intooda badanna laga dhex helo. dadka 60 sano ka weyn markii Mareykanka Ingiriiska la fiiriyo boqolkiiba 50 ilaa 60 waa laga helaa. wadamadan kale marka la soo aado laakiin wadamaha hadda soo koraya sida Soomaaliya oo kale bulshada in ka badan boqolkiiba 80 waa laga helaa. bacteria marka caloosha dadka intooda badan maadaama laga helayo, cudurku waxay ku keentaa ku dhawaad boqolkiiba 10. marka bacteriadaas ayaa inta badan oo H. pylori loo yaqaan ayaa gaaska iyo gastritis-ka caabuqa caloosha ku dhacmay iyo waxyaabo badan oo lamid ah oo dheefshiidka saameeya ayadaas sababta. waxyaabaha kale cudurkan gaaska Soomaalida u taqaan haddaan xooga saarno sababo waxaa ka mid ah xanuun baabiyaasha sida noocooda loo yaqaano NSAIDs, oo waxaa ka mid ah sida paracetamolka ka mid ah, ibuprofenka ka mid ah, diglofenka ka mid ah. xanuun baabiyaashaas waxay dhaawacayaan iyaga naftirkooda markay caloosha tagaan, waxay dhaawacayaan xuubka ku dahaaran caloosha. sidoo kale dhiigga caloosha imaan lahaana way yaraanayaan, iyagoo yareyn doona wax loo yaqaan prostaglandin oo shaqadiisu ahayd in caloosha dhiig badan keeno si loo dayactiro. waxyaabaha kale gaaska sababo waxaa ka mid ah smoking and alcohol. qofka inuu sigaar cabo iyo inuu khamro cabo labadaba directly waxay toxic ugu yihiin dhaawac u geysanayaan caloosha. nabra ku samaysmaya caloosha kadib gaaska imaanaya. calaamadahoodana labadan cudur aad iskaga dhow yihiin. markaan ku hormaro caabuq markuu caloosha ku dhaco gastritis, calaamadaha qofka caadigu yeelanaya waxay tahay in caloosha aari badan lagu arko, lallaba iyo matag yar, iyo xanuunkaas yar oo epigastric painka lagu arko oo bagaa qofka waxay maro. laakiin markii la baaro endoscope la geliyo caloosha wax nabraha laguma arkay. gaaska laba nooca loo sii kala qaadaa. midna waxaa loo yaqaanaa gastric ulcer, wuxuuna ku dhacaa caloosha. ka waxaa lagu yaqaanaa qofka markuu raashin cunaba badga halkaasba aad u horeysa. waxaa laga yaabaa qofka inuu matago u adkeysan waayo, gaajadaana u roon. qofka hadduu baahan yahay inta hadduusan raashin taawan xanuunka inuu ka yariyuu dareemaya. midka kale waxaa loo yaqaanaa duodenal ulcer, wuxuu ku dhacaa xiidmaha caloosha. waxaa ka hooseeya xiidmaha oo duodenumka ka hooseeya ayuu ku dhacaa. asaga waxaa lagu yaqaanaa qofka markuu cuntada cuno kadib 2 saacadood ama 3 saacadood kadib ayuu caloosha u horeysaa, xanuun badan uu ka dareemaa. ama saqda habeenkii markii caloosha faaruqta ayuu xanuun badan la soo toosaa. qofka markuu raashin cuno uu ku nafisayaa, xanuunka inuu ka yaraado dareemaa. kaa waxaa loo yaqaanaa duodenal ulcer.
marka qaarna qofku aad gaaska ugu xumaado dhaawacii caloosha gaaray waxaa macquul ah in dhiig caloosha ku furmo oo qofkii uu martabo dhiig ama saxaradii madow noqoto oo dhiig soo raaco calaamadaas waa danger sign waaye calaamad aad halis u ah waaye haddaad isku aragtid waxaa u baahan tahay si degdeg ah inaad isbitaal u tagto sidee lagu ogaadaa qofka inuu gaas qabo ama lagu xaqiijiyaa qofka inuu gaas qabo ama uu qabo caabo horta waxa ugu muhiimsan inaad qiyaastaan dadka inta badan waxay leeyihiin gaas aan isku ogahay ama gaas aan iskaga shakisanahay laakiin sida habboon oo fiican qofku waa in uu xaqiijiyaa inuu gaas ku hayo gaaska noocu yahay la xaqiijiyo weeyaan kadibna lagaa siiyo daawo ku habboon markaas maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa isbitaalka markaad tagtid waxaa lagu samayn doonaa wax loo yaqaan urine breath test inkastoo xamal inta badan la helin waxa inta badan isbitaalada laga helayo waxay tahay in lagu sameeyo H. pylori stool antigen in bakteeriyada caloosha sababaysa in la fiiriyo oo saxarada laga baaro taa wuxuu sheegayaa hadda in infection hadda ku hayo oo gaas nooca u jiro daawadii markii lagu siiyana aad ka fiicnaatidna isaga waa la waayay mid kale waxaa jiro dhiigga laga baaro in dhiigga laga baaro inta badan faa'iido u leeyahay loo isticmaalaa qof weligii aan gaas daawadii qaadan ama aan hore loogu sheegin markii la rabo in check up lagu sameeyo haddii laga arko waa la daweynaya laakiin daawadii inay successful noqoto lagu guuleystay in lagu guuleysan waayo dhiigga lagama ogaan karo waa markaa ciladiisa waa mida sida kale si habboon oo golden standardka in la sii kala saaraya tahay ugu sii fiican waa in kaamil caloosha la geliyo loo yaqaan endoscope la soo arko caloosha nabrihii ku yaal haddiise nabro lahayna meesha ay tahay inflammation ay tahay oo caabuq badan uu leeyahay gastritis oo qofkan qaba waa golden standard oo waxa ugu fiican weeyaan iyo baaritaano kale oo caawiya lagu samayn doonaa kadib wixii soo baxa daawo ku habboon laga siin doonaa ha noqoto in lagu siiyo BPI wax loo yaqaan oo proton pump inhibitors sida hadda Soomaalidu way yaqaanaan kaniini gaaska ay dhahaan oo omeprazole esomeprazole lansoprazole group-kaas lagu siiyo ama in sida fiican oo saxan qof walba marka caloosha hor u hayso uu rabo in farmashi ugu soo dhow inta isbitaalka qofka uusan ka gaarin inuu qaato anti-ICS magacyo badan ay ku leeyihiin Gaviscon ugu caansan Gaspin Malex Maxim waa badihiin magacyo badan leeyihiin kuwa qaar xitaa waxaa waaye calcium based in kuwaas aashida markaa burburinaya oo caloosha markaa aashida ku jirta milxaya qofka inuu isticmaalo si calaamadihii iyo symptomatic relief uu dareemo dadka intiisa badan waxay aaminsan yihiin in cudurkan gaaska aan laga daweyn gaasku daweyn ayuu leeyahay waana laga fiicnada gaas ku dhaco oo ku hayo lagugu soo sheego waa ka fiicnaanaysaa daawo fiicana laga siinaya waana cudur 100% treatable la daweyn karo dad badan ku imaanay ku dhahayo 20 sano 10 sano gaas haya gaas ma biga baxbo waa qalad in laga daweeyo waay marka qaar waxaa jira wax loo yaqaan functional dyspepsia qofku la abjeex badan uu dareemaya wixii keen lama yaqaan qofkaas waa la fiiriyaa H. pylori ma lahan bakteeriya calooshaas ma jirto wax kale ma jiro cunooyinkii wixii laga saxaa laakiin dadka noocaas noqon waa dad aad u yar laakiin la abjeexa dareemaysid iyo gaaska waa laga fiirinaa gaasku ma la isqaadsiin karaa ha gaasku waa la isqaadsiiyaa wuxuuna ku gudbaa laba nooc fecal oral transmission oo ah qof cudurkii gaaska qabo in saxaradiisii iyo afkaas uu gasho ama qofka gacmihiisa soo saxarada iska nadiifinin maaragtay cunno sameeyay ama cunno gulay ama meel uu intaad taabatid adoona gacmihii iska dhaqeen inaad cuntid cudurro intooda badan arki doonaa markaan hadaan videogii ku xirantaa daawanaysa inta badan uu soo gali doonaa bas cudurro intooda badan nadaafad darradaas ay ku imaadaan inoo wasakhaysan oo bakteeriyadii leh qofka inuu qaato bakteeriyadana bakteeri aad u adkaysi badan waaye midka labaad inkastoo aysan badnayn oral to oral route qof gaas qabo inaad shamisid oo kale ama yani ama lamaanahaada markuu qabo in uu shamiska waxaa kugu qaadsiiyo laakiin waa yar tahay inta badan gaaska waxaa la isku qaadsiiyaa cunnada wasakhaysan ama gacmahaagu yani wasakhaysan inaad wax ku cuntid oo bakteeriyada saajirka ay ku gasho
ka hortag waa waxa ugu muhiimsan weeyaan. Ka hortagga cudurkan waxaa ka mid ah ama waxyaabaha la rabo calooshaada laga rabo in ay difaacdo waxaa ka mid ah inaad iska ilaaliso cunooyinka spicy foodka ama basbaaska ku badan yahay, caloosha irritate garayn karaan. haddii calaamadii gaaska aad leedahay dhakhtar inaad u tagto daawadii laga siiyo. sigaar cabidda inaad iska dhaaftid ama khamro cabidda. sidoo kale inaad iska yareysid xanuun baabi'iyaasha haddaadan wada joojin karin. dhakhaatiirta inta badan markay rabaan qofka inay xanuun baabi'iye siiyaan dadka lafaha waxa oo kale loogu qoro xanuun baabi'iyaha waxaa loo raacsiiyaa daawo kale difaacaysa loo raacsiiyaa. marka meel daraha u qaadanin xanuun baabi'iyaasha. iska yaree haddaadan wada dhaafi karin, calooshaada difaac adag ku samee. sidoo kale waxaa loo baahan yahay in cudurkan dadka laga wacyigeliyo, dadka lasii gaarsiiyo, sababtoo ah cudurkan halisyo badan oo keeni karaa. in caloosha dhiig ku furmo keeni karaa, in caloosha intay duleelsanto wixii caloosha ku jiray iyo midhciri iyo wixii intay galaan oo wax la dhaho peritonitis uu keeno aad u badan macquul ah. marka qofka wacyigeli, dadka loo sheego, ha laga wacyigeliyo si markuu gaas hayo ama caloosha xanuun ay ka dareemaan uu dhakhtar u tago uusan ignore garayn. ولوها أنت بدل العج أهاني financial هذا معقول معها لكن try your best that can help سيجارسية جوجوي جنانت وح معقولة إن أديجا أو قفا تقانين عذر كان وتعالي وحي سؤالا قبل كومنتي إيه سويدي كمل كايدة في كالكود ولا سيشار جري فيديو أحمد كدودان إلى إذا ما الحديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.